10 sano ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa ay tageen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxay ahayd booqashadii ugu horeysay ee hogaamiye uu ku tago Soomaaliya. Booqashadaas ayaa xilliga indhaha caalamka ku soo jeedisay xaaladii bini'aadanimo ee ka jirtay Soomaaliya, iyadoo muhiimadda koowaad ee Turkigu uu ahaa inuu gargaar bini'aadanimo gaarsiiyo dadka ay saameysay abaartii ugu darayd ee bariga Afrika ka dhacda muddo 60 sano ah. Xaaska madaxweynaha Turkiga ayaa buug ka qortay wixii ay xilligaas ku soo aragtay Soomaaliya iyo wadamo kaleba. Aamina, oo ah marwada koowaad ee dalka Turkiga, ayaa xarunta qaramada midoobay ku soo bandhigtay buug ay ka qortay booqashooyinkii ay ku tagtay dalal Afrikaan ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Xaaska madaxweyne Erdogan ayaa markii ugu horeysay buuggan la wadaagtay xaasaska madaxweynayaasha ka qayb galayay shirka New York ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu. Iyadoo ka hadlaysay munaasabadda ay buuggeeda ku guddoonsiinaysay qaar ka mid ah xaasaska madaxweynayaasha, waxa ay tiri sidan: waxyaabaha aan buuggayga ku qoray waxa ka badan waxyaabaha aan laabtayda ku haysto oo aanan qoraal ku soo koobi karin. Waxyaabihii aan geeska Afrika ku soo arkay waa waxyaabo aanan ilaawi doonin. Waxaan tegay Soomaaliya oo xaalad adag oo abaareed ku jirta, cunto iyo biyo la'aan. Abaartu xilligaas qof kasta ayay saameysay. waxaase cajiib ahayd, Soomaalidu iyagoo xaaladaas ku jira ma aanay muujinayn wax cabasho ah. Waxay ahaayeen kuwo adkaysi leh oo aan u jilcin dhibaatada. Markasta waxaan ku xasuustaa qiimaha sabirka, iimaanka iyo rajada. Si la mid ah sidaas oo kale waxaan ku soo arkay Senegal, dad aan bahaysan guryo ay qorraxda ka galaan oo ay biyo la'aan u dheer tahay, haddana iska faraxsan oo dhoolla cadaynaya. Marwo Aamina buuggeeda waxay kaga hadashay khibradda ay ka heshay safaradii ay ku martay qaar ka mid ah wadamo qaaradda Afrika ka mid ah. Buugga ay qortay Marwo Aamina waxaa la yiraahdaa My Travels to Africa, oo macnaheedu yahay safaradii aan ku tagay Afrika. Buuggan ayaa loo qaybiyey wakiilada ka socda hay'adaha aan dawliga ahayn iyo madaxda wasaaradaha arrimaha dibadda. Marwo Aamina ayaa buuggeeda u hibaysay hooyadeed. Buuggan ayaa si weyn uga sheekaynaya safaradii ay gashay intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2020. Safaradaas oo ay ku tagtay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Algeria, Ethiopia, Tanzania, Mozambique iyo Senegal. Xaaska madaxweyne Erdogan ayaa qaybaha ay buuggeeda uga hadashay safarkii ay ku tagtay Soomaaliya waxay ku sheegtay inay ku soo aragtay xaalad si weyn u dhaqaajisay qalbigeeda, iyadoo xasuusanaysa socdaalkii ugu horeeyay ay ku tagtay Soomaaliya sanadku markuu ahaa 2011. Waxa ay tiri sidan: markaan Soomaaliya tegay waligay uma aanan ooyin sida aan maalintaas u ooyay. waa xasuus lama ilaawaan ah oo aan ka go'ay noloshayda. Marwada madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale iyadoo cabiraysa dareenkeeda ku saabsan booqashadii Soomaaliya waxay tiri sidan: wax turjumaan ah uma aanan baahnayn maalintaas si aan u dareemo xanuunka ay dareemayeen hooyooyinka carruurtooda ku waayay gaajada awgeed. weligay uma ooyin sida aan maalintaas u ooyay. Ilinta ayaa ah luqadda uu qof walba fahmi karo. Waxaan aragnay carruur ay isku dhageen lafahooda iyo maqaarkooda. waxaana loo sheegay in ilmo badan oo goobaha caafimaadka loo soo qaaday ay dhexda ku sii dhinteen. waxaan Soomaaliya u diyaariyey hawlo samafala, waxaana leeyahay ha iloobina Soomaaliya. Marwo Aamina ayaa buuggeeda ku soo bandhigtay sawirro farshaxaniistayaal Turki ah oo safarkeeda ku weheliyey Soomaaliya ay ka sameeyeen horumarada Turkigu uu ka hirgeliyey Soomaaliya. Marwada koowaad ee Turkiga ayaa sheegtay in wixii ka horeeyay howlgalkii horumarinta Afrika ee Turkigu ka bilaabay sanadii 2005 ay qaaradda Afrika ahayd mid ka fog dadka Turkida.
fikraddii ay markii hore ka haysatay Afrika iyo waxa iska bedelay, iyadoo ka hadlaysa waxa ay tiri sidan: marka la soo hadal qaado Afrika, waxa maankaaga ku soo dhacaya gumaysi, saboolnimo, baahi, caruur ooman. Fikraddaasi waxay isbedeshay markii ugu horeysay ee aan booqashada ku tagay Afrika. Inta badan waan raacaa saygayga dhammaan safarada uu u baxo, waana arrinta ii sahashay inaan khibrad badan kororsado oo aan wax badan ogaado. Safar walba oo aan ku tagayay dalalka Afrika, waxaan ka horreysiinayay koorsooyin gaaban oo aan ku baranayay waddan kasta dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa. Mudnaan gaar ah ayaan siin doonaa dhibaatooyinka haysta dumarka iyo carruurta reer Afrika. waxaana doonayaa inaan ka mid noqdo dadka daweeya dhaawacyadooda. Naxariista noocaasa waa dhaqan uu leeyahay waddankayga aan ku dhashay kuna barbaaray. Marwo Aamina ayaa rajo ka muujisay in buuggeeda cusub uu keeni doono wanaag, wada shaqayn, isdhexgal dhinaca dhaqamada ah, uuna xoojin doono saaxiibtinimada ka dhaxaysa Turkiga iyo Afrika. Marwo Aamina waxay buuggeeda ku xustay in qalbi ahaan ay aad u taabatay marxaladdii ay ku aragtay mid ka mid ah xarumaha agoonta ee ku yaalay dalka Djibouti, xaruntaas oo la yiraahdo Daryeel. Xaaska madaxweyne Erdogan ayaa ka sheekaysay waxyaabo ay ku soo aragtay Itoobiya oo ay booqatay sanadkii 2015, iyadoo arrinta Itoobiya ka hadlaysana waxa ay tiri: si aad u fahanto xaaladda bini'aadanimo waxaad u baahan tahay inaad indhahaaga ku aragto. Aniga ahaan safarada aan dibadda ku aaday waxaan ka soo helay khibrado i xasuusinaya mas'uuliyad. Booqashadii aan ku tagay Itoobiya sanadii 2015, waxaan arkay dumarka Itoobiya jimjimaha gacmaha la gashto ee dumarka ee ay dumarka Itoobiya sameeyaan. waxaa looga iibsadaa marka Itoobiya la joogo $1 oo kaliya, waxaana la geeyaa jimjimahaas dukaamada caasimadaha reer galbeedka. waxaana lagu iibsadaa jimjimihii ay sameeyeen haweenka Itoobiya lacag aad u qaali ah. waxaan oran karaa waa suuq aan cadaalad ahayn. arrintaasina waa mid quus gelinaysa haweenkaas. aniga ahaan, qof dumar ahaan, waxaan u istaagay inaan jebiyo silsiladda dhiigmiiradkaas. markiiba waxaan qaaday tallaabo aan ugu sameynayo haweenkaas suuq cadaalad ah oo u gurmada haweenkaas. 3 sano ka hor waxaan asaasnay suuqa farsamada gacanta iyo hiddaha Afrika oo ku yaala Ankara si ay uga iibiyaan farsamada gacanta haweenka Afrika. suuqaasi wuxuu ka dhigan yahay codka Afrika ee Turkiga. dadka Afrika waxay noo soo dhaweeyeen sidii qoysaskooda oo kale. sidaas ayaan dareennay meel walba oo aan tagnay oo Afrika ka mid ah, sababtoo ah waxay og yihiin sida Turkigu uga duwan yahay gumaysiga. sidaas darteed saaxiibtinimada naga dhaxaysa Afrika maalinba maalinta ka dambaysa waa mid sii kordhaysa. booqashooyinkayga Afrika waxaa loo tixgelin karaa buug xusuus qor ah oo khad cusub lagu dari doono inta aan noolahay. waa buug aan daboolkiisa la isku xiri doonin. waxaan rajaynayaa in waxa dalkeenu Afrika ku kasbaday ilaa hadda ay noqon doonto wadda ay qaaradda Afrika ku gaarto barwaaqada ay mudan tahay. waxaan rajaynayaa in wajiyada carruurta Afrika ay mar walba dhoola caddayn doonaan. dhaqaalaha ka soo baxa buuggan waxaa loo adeegsan doonaa horumarinta waxbarashada, caafimaadka, haweenka iyo carruurta Afrika. waana wax astaan u noqon doona saaxiibtinimada iyo wadajirka Turkiga iyo Afrika. buugga ay qortay xaaska madaxweyne Erdogan ayaa marka la daafuro noqon doona mid caalami ah oo dalal badan oo dunida gaari doona. buuggan iibintiisa waxaa la bilaabi doonaa bisha Oktoobar, waxaana lagu tarjumi doonaa laguna daabici doonaa luqadaha kala ah Turkish, Ingiriis, Faransiis, Carabi iyo Sawaaxili.